السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة ذيني حلقة ذيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقلوات أنا جوا عمر محمد حلقة عصب برنامجك بودكاست إن شاء الله يسبدل بودكاست ما أنتنا ما يتشرف حانو أستاذ إبراهيم وكما على أستاذ إبراهيم طويل فكسودوا معلومات اهلا معلم وسهلا. ما كلها وما كلها لا بالمرة ان شاء الله. اهلا وسهلا. نعم. دوي ان شاء الله. شكرا عمر. تعريف اسكبه هذا قواله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل يدي مقعي هو ابراهيم شعب بدل بالي هذا. waxaan ahay dadka magaalada Nairobi ku nool, meeshaan arday ka ahay, dadka barnaamijka dacwada ku jirana waan kamid ahay. marka inta aan baan kusoo gabagabeyn karaa taariikhdayda. أقدر نواتها محل نواتها aad ما شاء الله. أستاذ إبراهيم مالن دحين وحنك هادلين برنامج مجالك تربوي إذا أهم فكر الإسلام إيو تربوي وحبرسك محلها تربية ذا أو أقدر إذا إيو فكرك إيو مدارسته سكول ذا سامين تأيل إذا هاي من ناحية فكرك قفك عنق ياك هذا صباحايو iyo mujtamac oo dhan saameynta uu leeyahay waxa madaarista laga barto iskuulada laga barto iyo waxa marka magaalada lagu dhaqmaayo totally ahaan aan mar isku soo qaadnay inaan dhowr wax u kala qeybino fa manhajka tacliimiga hadda xilligan hadda lagu joogo qaab bagashaalkiis manhajka Soomaaliga wadanka dalka yaalo mise manhajka hadda Kenya yaalo oo wax lagu barto ayadoo waliba si manhajka islaamiga oo madaarista lagu baro saameynta ka qaada karto takwiinka fardiga mise ardayga tifalka muslimka Soomaaliga danasiya waa su'aal fiican. manhajka horta inta badan horta manhajta ardaydu ay wax ku bartaan, ardaydu dabcan way kala duwan yihiin, isku maraaxil ma aha, maraaxishoodu way kala duwan tahay. qayb hoose waxaa jirta maaragtay iska bilow ibtidaa'iya, qayb dhexaada, qayb dugsi sare ah, qayb jaamacadda, way kala duwan yihiin. manhaj walbana kulli marxaladiisa goonida ah ayuu leeyahay, duruuftiisa goonida ah buu leeyahay. si kale marka loo eegana manhajta way kala duwan yihiin min wadan ilaa wadan. wadamada way kala duwan yihiin oo wadamo isku duruuf ma ahan. oo marka hore manhajka la samaynayo ama ardayda loo dejinayo dadkaas lajnadaas manhajka samaynayo waxay eegayaan oo fiirinayaan dadka ay u dejinayaan ayagoo jawaanib badan ka eegahayo xagga dhaqankooda, xagga maartay diintooda, xagga maartay caraaftooda, xagga maartay quduraadkooda, meel badan ayagoo ka eegahayay maartay ay dejiyaan. marka manhajka qaybta islaamiga haddaan u soo galo oo u soo dego qaybta islaamiga kulliyada Kenya oo kale haddaan maalan aan ku soo laabto intaan meel kale aan Kenya baan inta badan ka warqabnaa. qaybta islaamiga si marka loo eego waa fiican yahay, si marka loo eegana waxa ku jiro ضعف badan baa ku jira. takwiinka dambe ay dambeeyay laakiin horta waa in marka la isla fahmo manhajka inta badan madaarista islaamiga ay wax ku baraan ama ay haystaan in dib loo yara eego. manhajtu inta badan waxay tayo ku yeeshaan, macnaha ay ku yeeshaan markay helaan wasaarado iyo meel ay ku tiirsan yihiin hoos tagaan kadibna dacmiyo. ilaa waxa la sameeyaa manhajtu haddii jarar waxay u baahan yihiin mar walba oo aysan ka maarmeynin in lagu sameeyo tadwiir المناهج وحلقة بتلو أيضا مركز لما راعينا يلا فيرنا هيو ظروفته مركز تاجن لأن أدوكو إسبدلها هي تغير معناها أدوكو قصعد هائلة هذه دير حوار دير قصعد نعم تغير كاس مركز وكينا يا إن مر بقى لسعودي حالات تاجن تاع لسعودي هذه مركز منهج كهذه تسميني سيد أما أرض أدبري سيد ومارت ولسعون ويا ظروفته مركز تاجن ولسعون ويا مر بدن منهجك وحكوا إيمانها هيو ضعف بحكوا إيمانها هيو waxaa laga yaabaa dacfigaas inuu keeno ulajeedadii iyo maqsuudkii iyo dantii laga lahaa inuu maaragtay uu sidii la rabay u dhalin waayo yaa marar badan yaa ka imaanayso. manhajka marka islaamiga inta badan madaarista maaragtay ka jiro ma haysto mashaariic u taagan ama meel uu ku taagan yahay ama wasaaradaha hawsha ay aqoonayaan wadankan aan ku noolahay waa wadan haddii aan isku diinahayn wasaaraddiisu wuu jiraa wadanka uu qabaa wasaarad tacliimi uu qabaa oo waxbarashada u xilsaaran
laakiin qaybtan ayaga ay garanayaan waxaan loo إسلامي yaqaan ما islaamigaan ahayn مهم. ba ayaga khuseeyo نعم qaybtaasi marka waxay ku sameynayaan tadwiir qaybtan kale marka waxaad moodaa indiraas baa ku dhacay indiraas baa ku dhacay inta hadda la haysto madaarista laga barbara ama maaragtay la cayriyo waa in waaga hore nooga imaaday wadamada maaragtay khaliijka macaahidooda inta badan ka imaaday way ama muddo hore hadda qabla cuquud min zaman laga yaabo hataa 3 caqdi ka hornay tahay ama 2 caqdi 30 sano ka hornay tahay laga yaabo نعم manhaj la dejiyey إلا هذا yaa laga yaabo ilaa hadda in la wato وإحنا اللي سو كبحنين waxna aan lagu kordhinin marka taas xoogaa marka waxay keenaysaa dabcan waagii manhajkaasi la dejinayay ama annagana loo keenayay ama dee hay-aadkii markaasi dee shaqada qabtay annaga ayna siinayeen waxaa laga yaabaa duruuftii markay taagna marka loo eego inuu anfaci lahaa baa laga yaabaa dabcan waxaa laga yaabaa uu naafacay baan dhihi karaabo ilaa xad laakiin hadda adduunku waa isbedelaya oo wixii adduunkii taqayur baa ku imaanayo ardaydii ma ahan صح waagii kuwii loo dejiyo kuwan نعم isma laha وأقدر هواي badan baa iska bedelay أونلاين أقدر هذا ها marka wuxuu u baahan yahay in lagu sameeyo isbedel in lagu sameeyo oo maaragtay nooc tadwiir ah in maaragtay lagu sameeyo u baahan yahay taa marka maadaama nooc asaga uu waayay ama arrinta meesha ka baxday xoogoo xagga ardayda quduraadkoodii iyo manhajkii xoogoo marar badan iskeeni layahay culays badan نعم yaa maaragtay yaa ka jiro marka taas waa mushkilo ka jirto manhajka islaamiga ee Kenya mushkilo ka jirto weeyo intaan kulli aan ka warhayo oo aqaano xagga tagwiinka ardayda fikirkooda iyo ka qayb qaadashadooda ardayga kobcintiisa هذا أنا مكتئب حسامينا محلها أونلاين كسامينا مقال ده سامينيسو بالضبط اسكوليات قاعدة حتى أقدر قاعد مسلمين تا اسكول إن دكتور محل أو كاثوليك أو كمسا اسكول أو تص أو حاجة ممكن يسدوين أنا لسه بغني بوق يدهان آغاي أو يعني بوق إسكير وقتها والمحل لواتن بيج حتى تصنع في سبعة بيج مجاعي أو دين الإسلام حتى حلقة متكسرس حتى إنها لبغين وحلقة قاعد بودينو كجوا مدارس أو دحسة حنين أو كاثوليك مسجالة ninkaas waalidiinta muslimiin ah saameynta keenayso dadna waxaa jirta dagoof xumo inoo ku raacaan iskuuladaas iska tawag yagiin haddana raadinayin maadiga aad iyo aad midna waxaa lagaa saameyn inay keento meesha ay degan yihiin mogtahay soomaalidana luuq walba haddaad tegtid nin soomaali ma waynaysid meeshuu degan yahay aad iyo aad fa taasna ma isdhihi kana inay yani saameyn badan yeeshaa min naaxiyat takwiinka dhismada oo qofka muslimka dhismadiisa bitabdi cunuga qofka muslimka sidiisoo dhan buu wuxuu tayo ku yeeshaa intuu diinta ka qaatay macnaha diinta islaamka intuu ka fahmay ama ardaygani ama cunugani markii uu yaraa haddii waxbarashadiisa kobcintiisa ay qayb ka noqotay mashruuca islaamiga uu qayb ka noqday hadhow fikir ahaan uu ka fiicnaanayaa kan kale barnaamijkan aanan helin sidaa darteed marka ardayga madaarista kale ee aan islaamiga ahayn ama xukuumadda Kenya laga yaabo inay raacsan yihiin inta badan ku taxanay halkaasi waxbarashada u galay ay sabab u galaybo لأن أسبابته وكرد ونان كرتها نعم إنك السؤالات شابك عشان وظاهر يه أنت بدن وتشرو ودي والديك كيس أقوم كيرين إني مارتها يسكب حيان المارتي مدارس تان بقول ذا اللي هي دمج جاه سكول حضر غيبت إسلامي جاهي يقطع محل مادي كلا سكول دري يعني يسكب حين كيرين أو ظروف تلقى إنسان وسامحين oo taasna ay keentay inay mar badan ilmihiina ay waxbarasho rabaan ay la carareen qaybtii maartay kale ee dawladda ay u qumaysay inay maartay ay ka bixiso oo maartay arinta ay sabab ku noqotay inuu ardaygii uu meeshii uu khalal kaga imaado nuqsaan uu kaga imaado qaybtii la rabay in islaamka lagu buuxiyo way maran tahay ama ala aqal taqdiir waxa la dhigi karaa wax kale buuxinayo oo xashu iyo meesha ku noqonayo hadhowna ardayga mustaqbalkiisa aanan anfacaynin ama mise khalal inuu keenabo yani oo ninkan fikirkiisa خلال من ناحية الدينية هان أنا خلال بكوني لأنه مسكحلاني قلبي جاني إسكما مرنا بين طبعا هدي وميل سبيس وكهلا أما وكبنانا وحبوا هنا هي أنا مناسبة هين بقول هنا وحس أنا مناسب كهين هدو مركا أرضي ما دام يرانت وكسر راعي أما مرحلة التعليمية وكسر راعي ولص عنها يا مستقبل كيس مركا وحاوي ونقنا يا نقصان ودريمي وأنا كهرين ونقنا يا ولص عنها ونقنا يا إذن قضية أيضا مركا إن أرضي مدارستان قيبتان كلا إسلامي قاعدين دجناهي فكر كيسي تنكوين كيسي للربي مهلهاي واي وحوي مرحلة وعقوصة برتبة مكة عاوني سو إنه قضية أيضا ويشران مواد يرأى كوبان
oo islaamig magacaas ku magacaaban oo dowladda ay sida matalan maadada ariga oo kale taqriiban oo iskuulaadka maaragtay aan islaamig ahayn lagu baro laakiin ma ahan tayadooda maadooyinka ayaga markaad dhigtid maadooyin ardayga wax yani maanta wax weyn u tagaayo ma ahan yani bidabiicatiha ma keenayso in ardaygani uu ku faa'iido ama ay ka qayb qaadato takwiinkiisa fikriga ay ka qayb qaadato من طبيعتها لأن مركل الدجينة يبي لو قمت لقلين إنه نكان يعني وكفاية من ناحية الدين كم كفاية سنة هي مركو حوي تاسنتو مارت أرضي وحطريسه معهن مركو قضية أيضا إن أرضي أي هلي وين برنامجتي مشروع إسلامي أي هلي وين أيوة أرماها ظروفها سيجران نقالها أو كوكي هي وأرن دبعتي رجلتوي مركو وأرن أن ده لقى الله بكرين هدي تانا هدي وحلو قبان كره هدي oo maartay lagu hortagi karaa in la helo mashruuc sax ah oo hawsheeda ah lagu wajaho muassasaadka iyo hay'adka iyo dadka dhaqaalaha iyo duwalkii maartay islaamka ah in ay ayada hawsheeda duwalka inta laga gaagin waxa laga yaabaa xataa dadka qaar waxay jirtaa madaaris ahaanta yani iskuulaadka ahaanta oo maxaa la Soomaalida iska leh dadka qaar xitaa si gaar ahaan u eedeynayeen oo dhahayn ayaka laftirkooda waxa waaye maanta juhdi badan kuma bixinayn arrintaas sax sidoo dhanba ummadda ayada hadday mar isku tashato oo ayada dhaxdeeda ay isku tashato wax badan bay qaban kartaa sax haddii laakiin ayada dhaxdeeda aan isku tashanin oo nin walba haddii markaas masaalixda khaaska ahayd ay marar badan ka qaalib noqoto masaalixda caamka ay ka qaalib noqoto wax badan way lumahayaan mujtamaceena Soomaaliyeed haddii anaga dib aan iskugu laabanno awoodeennana hal dhinacaan u jihayno awoodeena dhaqaale iyo mideena fikri haddaan hal dhinac u jihayno annagana dib iskugu laabanno waxaan isdhihi karaa baahiyo badan حاجات بدن بلد دبولي كرابان سليها نعم لكن مشكلة وحاجة كجرتها وحوي أنت بدن إن مصالح ذا خاص كأهيد يا مر بدن وحي رجتي مصالح ذا عام كأهيد تاس مركو حي ماشي كسرتي دتك دبناها أما دتك سيد جونا ودبعتي سنة أما دتك ظروف تجوني أهيستي إن سيد الله المام نعم أو إن أيها مركزي شبكات أيها لقي يعين مصالح جورا إسقاطان إن إسعير سدان مركز تاس إن أيدا أي دتك مسلماتك dadka muslimiinta aan ula jeeda ay maartay ay wajaheen ay dadka iskuulaadka maartay bareefadka iska leh midalan ama qolyaha maartay ay ku wajahayeen mar badan waxa la dhihi karaa waa eed lagu eedeyn karo oo maartay ay muuqanayso waayo mar badan in laga gaabiyay way jirtaa qadiyada ayada marka waa arrin maartay aan ilmeyn waalidiinta naftirkooda هو ما شاء الله يعني دتك مدارس تقا وحاجة جهد وين كبحسون سكولات قا وحاجة والدين تقاسي قا أهان عيالكود محل الله مس أقدر تعلمت إيوها يعني دوكسيالك إيوها كده دالين لكن سأيان تان واحد أركيسا مناهج تسيده مع دوكسيالك لفتكود يعني ما دام وأنت سنال صوتا مناهج كل سكول بيجي مدول بمنهج جالس إنه إسكو سوكوي أيو عيالك ودرا أول نحلس بيجي متونتي أو بما يسمى متونتي وهابيد كل اللي يجي مسوي أحلى من ده مثلا يعني كتب ما أنت عنق واحد بدن أتجس أصول الثلاثة عمل متونتي يجستاي متن الشافعي عمل إيه وحى أيام تان مقال ديوك بحاين قفول بمس مدارس والب منهج إسكا جاون أو إسكا أفجاون سكول دي عمل أو خليج وحل لسه يجي أي سمي ناين وحاسة دكسياش السكول ده dadkii waalidiinta ay ku tashanayeen dugsigeena quraanka iyo maxaa la xadiidka iyo waxa dhan ka soo baganayo afar maado iyo wax kaliya ku soo baganayo waxa maanta wax weyn aan ahaynin intaas meel dagaalsan tahay misa waaga ay shakhsi aan u jeedo arrinta dugsiyada wala horta anu dugsi ma dhigo macallimiinta dugsiyadan inta badan ka mid ma ahi nacam laakiin hada waaqica guud aan ku dhex nool nahay marka wax badan baynu ka qiimeyn karnaa sax hal way jirtaa dugsiyadu tayadoodii meesha way ka baxday qaasatan kuwa hadii Nairobi ka jiro baynu ka hadlaynaa ضعف badan baa xaggooda ka jiro waaga hore dugsiyada ardayga markuu quraanka dugsiga u galo Soomaaliland garanaysaa de waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ay ku fahmi jirtay wuxuu ahaa quraanka nacam xalaawaadkaas quraanka ee ardayga quraanka uu ka soo barto hadhown uu ka soo baxo asoo quraanka garanayo ugu yaraan xifdisan kitaabadiisii qoraalkiisii hingaadiisii yani asaasiyaadkii iyo waxyaabihii quraanka laga doonayay qof quraanka yaqaan oo dhan asoo u dhameystiran yihiin waaga hore dhameyn jiray laakiin wadciga Nairobi ka jiro wadciga Nairobi ka jiro waxaad moodaa wixii waaga hore aynu ku naqaanay dugsiyada iyo waxa meeshaan hadda ka jira inay aad iyo aad u kala duwan yihiin dugsiyada ma raba inaan ku sii hadda aan ku sii dheeraado laakiin waxa weeye ضعف badan oo
xagga maartay ardayda tayeyntoodii ah yaa ka jiro marar badanna waxaa la isdhihi karaa ila tirkeedu dee arrimo iyo duruufo markaas Nairobi ka jiro baa keentay baan is leeyahay dabcan duruufaha jiro oo kale waxaa ka mid ah majaalka dugsiyada oo kale in laga buuxsamay oo dad laga yaabo aan ehel u ahayn oo shaqadii aanan munaasab u ahayn inay maartay majaalkii ay galeen kadib qofka haddii loo dhiibo shaqo uusan markaas muahal u ahayn maharadeedu uusan lahayn hadduu qabto ama faraha uu la galo natiijo kama imaanayso laakiin taas daliil wuxuu tahay inay keentay macallimiinta waxay qabtaan inay waayeen mise maxaa la dhahaa qof aan macalin ahayn aan u qalmin inuu macalin iska noqdo oo gisq intuu ka gaadinayo quutilyoomka intuu ka gaadinayo inuu waxa shaqadiisa ahayn oo mas'uuliyadda ka bixi karin oo hadhowtii dib dambana dhib u noqonayso ardayga as waxna uma soo kordhina asna wax iskuma soo kordhin صحيح qofkii markuu quutilmo بالضبط يعني نعم qofka haddii hawshu ay masaalix khaas ah isku bedesho oo masaalixda caamka ahayd مثلا macallinkani markuu shaqada galaya hadduusan eegin masaalixda caamka ah oo ah uusan ka eegin shaqadan haddaa gasho maxaa ummadda u soo kordhin kartaa dantiisa kale iska fiirsado oo dantiisa kale iska fiirsado meesha waxaa ka dhalanaysa aafaar bay ka dhalanaysa arrinta ayada yani raad bay ka tegaysaa raadka asaga waxaa daxiyo u ah oo ku baaba'aya meesha mujtamaci baa ku baaba'aya marka taas waxay keentay in masaalixda khaaska ay la fiiriyo tii caamka ahayna laga tago macalinka quutilyoonkiisa uu raadsado maxaa iga galay hawsha loo galo haddii ilmihii iyo mujtamacii iyo mustaqbalkii iyo jiilkii soo korhayay yaa meesha waxay ku noqdeen baasha ayantan ganacsi isku bedeshay ganacsi bay isku bedeshay dhinaca kale markaa ka eegto marka taas waxaa weeye waa arrin dhibaato loo maartay dhibaato keentay marka dugsiyada tayadooda meesha way ka baxday waxaad arkaysaa maalan cunug waxaa arkaysaa maalan haddaan amthila sheego oo kale cunug waxaa arkaysaa qur-aan ku dhameeyey ma qori karo fartiisa wax loo qoro ma yaqaan ku kale waa arkaysaa qur-aanka waa dhameeyey waxaa lagu leeyahay 5 jeer u dhameeyey hal jis inuu saxibsanayn baa laga yaabaa يعني ظواهرته موقنة مالها كم موقنة ضعفك صح كم يتهاي مركا وحي ويبطين نوعا ما وهذا مال يطبق والبو واحد كو أركيسا دكسو قرآن وكفران مدرسة قرآن وكفران بد أركيسا هذا أنا طيادين بجرتو طيادا مركو حكو إيمان ويدو وحاوي كو مركي من كان دكسو إنه إيماني أما نين مار دكسو إسكالي ملكيلا مركو فراي مرة بدن وحلقة يابا إنه صن كفرين بدن إخلاص خلاص oo meesha ka baxay niyad samadii oo meesha ka baxday majaalkii qof walba iska soo galay ninka quraanka akhrinayo oo maartay shaqada aan u lahayn mahaarad aan u lahayn taasna marka waxa weeye aasaartaas hadda noo muuqanayso yaa ka dhalatay taa waxa ka sii dagan ana arkay waaqaci iska shakhsi ah madahagista qaar مسدوكسياش قا حتى وحيال قا يتا محلها أو أساسيات إهن ودب أفيرنين مثال طريقة التعليم كهوس لقى صوب العواي بو عنق حق سامك قا دكسي ما أنت ما كان أنت لقى دكسي كل مكان جاي معلنك وحقوق قصبة إنه هذا إنه هوس كصوب العواي عنق أسوشان يتمون كبجاي حافظ دكسي حافظ كل عدة سود دقن وحلو بهنا عنق إنه مش كسي وضو دبو صوب العواي معلمين تقال إنه فيريان لعكت واحد مهم أهمك قا حاجة تا أقدر cunuga inuu haynin bisha ilaa iyo muddigsi inuu qaato bisha bilaabka imaamada cunuga xaafada dugsiga laga eegayo iska baxlo ilaa lacagta keenta dugsiga u soo laawanin fa agama iska saas ah soo saameyn ma keenso qofka dugsiga inuu ka fogaado mise cunuga agdegana shirkiis inuu dhaxbartanka ugu tago waxaas الأستاذ عمر عند الله قضب بدك الله واجس قضب كواد إن أرضي مركو دكسيان كتر دكسي كرت إن دبلو علي وأرضي مرة البو دبلو علس دبلو علس وكانوا دبلو علس أساق وجراه وحين كجرتا أنت بدن دكسي اللي يصل في الكودو تنافس بقير بحيو تنافس كي غير كلو ترتم هي كده من التجارة في يعني كده إذا جرتي معها تنافس حقوق سلبي أواي أو مارتي نوع من الحسد وحد مدى إنه لا يرسل على المودي ست تامركو حكي أنتي in dhaxdooda ay isxaqiraan oo ninkan dugsiga u furan yahay ninka kale ee dabaqa ku xigay dugsiga uga furan yahay juhdigiisa inuu xaqiro oo ardaygan dugsiga uu ka imaaday oo asagu uu imaaday wuxuu leeyahay ka wuxuu soo sameeyay waa hal baad kulis waxa ka jira haba almanfuuran way taa marka waxay keenaysaa inuu macallinka uu ku dhaw waalidka uu ku yiraahdo cunugaada dib u celinayo maxaa jira wuxuu soo bartay waxba kama jiro asaga markuu dib u celiyo waalidka uu yeelo oo dib u celiyo laga yaabo inuu muddo uu hayo markuu ka tago oo ku kala u tago hadana kii wuxuu leeyahay dibanu celina meel waxa ka imaaday
lagu baabay waad ka timaado sidaa darteed cunugan wuxuu mudan yahay inaan hore loo sii wadino dib loo celiyo marka meesha uu mushkilada ay ka socoto manbacul fasaada waa halkaas ani kulley waana ka cudur daartay macallimiinta u cudur daarnay haddaan kulley aan waayo majaalka aad may waa kugti maahan laakiin dugsiga qaadayta oo waxa lagu eedo taas marka waa mushkilo oo way jirtaa waa daahiro taagan ardayga marka waxa weeye 5 sano 10 sano ba waxa laga yaabaa inuusan dhaafin ajzaada hore quraanka sacamay iyo jus tabaarak inuusan dhaafin markaas uu ku wareegaysto marka taasna waxa weeye waa cunugi marka dambe waxay ku keenaysaa ay waalidkiiba ihbaad nafsi ay ku keenaysaa iyo jafar badan bay ku keenaysaa kadib waxa weeye waxa imaanaya insilaax in cunugu uu ka dhaxbaxo waalidku uu ka dhaxbaxo ama maaragtay hadee waalidkii iyo macallimiintii haddana uu soo tafaahum dhexdooda uu ka dhashay midda lacagta qadiyada lacagta dabcan hadee duruuf way iska jirtaa laakiin waxaan u maleynayaa daahiro weyn oo sii jirta ma aha waalidku way u baahan yihiin wax ilmahooda quraan u baro diyaarna way leeyihiin inay macallinka wixii guri kiradiisa ay ka bixiyaan laakiin mushkilada waxay ka jirtaa waxa la leeyahay lacagta la qaado inta doonaysan ha gaarto laakiin wax tayo leh in la helo halka meesha qodob ee waalidka ay ka dhiban yihiin ee dhibaatada ay ka jirto waa halka ayada ah weey taylaanta waqti mas'aalka waxa ibni waxbarashada total ahaan mise tawbawiye inaan ku ekaano laakiin dugsiyalka si galnay min naaxid tawbawiye ahaan haddaan u soo laabano Soomaalida inta badan ma sha Allah alayhim boqolkiiba iska dhaana boqolkiiba 9 oo aan ka soo bagteen midkii hal jeer dhameeyo midkii dhowr jeer dhameeyo ayadoo taataad waxa ka ninka aan ka bagtay kaliya dhunsanbo magaalada waxa taagan waa ninkii inta qoon ku soo bagtay ayaa haddana dhunsan oo magaalada ku jooga galaba kaagaha agta la dhigi faata soo agin selbi ma ahan misa يعني على سنتك جوتا من ناحية توبة ننك وحل يجي النقش على الحجر العلم في الصغر كالنقش على الحجر وانك أقدر عنك يكم كوح لبرو بحال متى أقدر درب حقوقتي رجح فأيضا هذا ناس عكسي وجدنا ما حكي ناس وصح إن نرت معلمك هو ذات كبا بالشدي كمديين waxaa jira la yiraahdo albi'atu alxaadina nacam bi'adu waxay hoosta ku haysataa moqt bi'ada macallinka uu ku dhex jiro ama ninka wadaadka uu ku dhex jiro ama ninka mutadayinka ama طالب cilmiga bi'ada uu ku dhex jiro buu hadii jiraala ku qiimeysan yahay bilmaana bi'adu haday tahay bi'a fiican oo aad iyo aad u qiimeysan ninka wadaadka ama طالبka ama macallimka waxa laga yaabaa ilaa xad inuu fiicnaado أما ضد كاسي في عن إنه هذا كاسي في عنا واحد إنه يدري هاي نعم بهذا هذا يثبت شو بأحهم عن نقطه ضد كل حجرة إنه أنت بدن وسامين بكويا لتا مركب معلمين تا إن حوار تدين كده ويري هاي بالمعنى إن شعار كل وتي دين القرآن كوحد السنة إنه ولاد وها سلاح السومالي مركب هذا بدأ عن كجاهله إيوه تدينكيسه iyo dhaqankiisa diinta iyo in la ilaaliyo macnaha mabaadi'da diinta iyo akhlaaqiyadka laga doonayo qofka macallimka صح in la ilaaliyo inay meesha ka baxday waa arin maartay jirto oo baahira oo Nairobi ka jirnaa waxa ka hadlay waa Nairobi dabcan waa arin Nairobi maartay in ka jirto way صح marka waxaan isleeyahay bee'adaas macallimku ku dhex nool yahay horta sabab bay ka tahay oo bee'ada Nairobi ka jirto bee'a fasid ah iska garan kartaa oo bee'a maartay akhlaaqiyadkeeda xilal badan oo ka jiro way ها هذا سنسمينا الثقافة الثالثة مثل ثقافة اللواد يعني أو ودن كجوا دقن كلواد يعني أو مقالد كجوا مثل دتك و تجد أهان مقالد إسلامي ما كبحيد حافظ عندك أنا مسماش صومال وبدن تمسي مجتمع إسلامي ما كده بحديد وأمده أكثر رقم كل دون وحياله فرق بدن إسحق الكاس يحس أي كنا سامينا كيناين ما أنت حتى من ناحية الميديا من محل إعلام كبديس يعني هرت وين أوقاتي كان مجتمعات كذي سوماليين يعني إسلام كليين يد كان كلي حتى مرتين أفريقيان كيان حتى إسلام كاهين وحجر واحد اللي هذا إن قصد الثقافات حلوس الدولي ثقافات كي نقمدي أي مجتمعات كسلهاين مجتمعات كسيدو ضمبو ثقافة الرجال بيت كهديت ثقافة غالبة صح ودد كان لا يتبعوا يهين دد كوس دور ميلود بك قدوشي حق الدين تبك قدوشي صح oo waxay isku dayday in dadka ka xoreyso mabaadi'da diinta ay qiyamka diinta ku dhisnaa inay ka xoreyso wayna ku guuleystaan li karaa ilaa xad oo wax badan bay sameeyeen
dadkii shabaabkii iyo dhalinyaradii inay diinta ka fogeeyaan wax badan bay hawsha ayada uga suurtagalay inkastoo dee meesha ay rabeen aysan gaarin صح dhinaca kalena way kaga duuleen oo waxay kaga duuleen caadaadkii iyo dhaqamadii bulshadu waxaa laga yaabaa bulsho walba dhaqan bay leedahay ها ayada goona thaqaafo ayada gooni waa bay leedahay ها thaqaafadaasi waxay awood u leedahay marar badan inay kontrolsho bulshada sax wala la نعم inay bulshada ay kontrolsho ها bilmacna waxay u kontrolaysaa shaygan waxaa laga yaabaa ninkani bulshadan ku dhex nool tadayun ahaan ama diin ahaan inuusan oga fogaanin baa laga yaabaa ama la kacabsi inuusan oga fogaanin laakiin ijtimaaciyan nooga carar نعم صح ها ijtimaaciyan بيئة انتو في يقنا ها بيئadu fiirinayaa لأن بيئadaas uu ku dhex nool yahay baa u diidaysa qofkani ficiladan inuu ku dhaqaaqo u fiirsa meesha masdarkeega wax ka qaadanaya waxaa weeye waa bey'ada waaye ها sidaa darteed marka waxaa weeye thaqaafada reer galbeedka ama dhaqanka reer galbeedka waxay samaysay waxay burburisay oo meesha ka saartay ama tawhiin ay ku samaysay oo daciifisay ومجتمعاتك caadaadkii dhaqamadii ها hadda maalan oo kale mujtamaceena soomaalida oo kale haweenka oo kale markaan hadda xaggooda aan fiirin oo kale yacni dhaqan mujtamaca soomaalida waxay lahaayeen haweenka lama taaban jirin صح waa laga cariri jire haddii gabar la taabto waa la isku baabi'i jire نعم hadda laakiin ma jiraan yacni وحسب ما شوك بابين way ka baaba'een maxaa daciifiyey yacni soomaali markii gabadha ay u baaba'ahayeen fikirkaas inay gabar u baaba'aan inta badan kamiisa qaadan jirin xagga diimid inta badan kamiisa laakiin dhaqankooda yaa wuxuu keenayay inaan gabdhaha laga agbixin inaan gabdhaha la taabanin in dhaqankooda gabdhaha laga fogaado inaan gabar waxba lagu samaynin yacni waxaa jiray caadaad dadka ay fiirin jireen baa jiray صح oo muhiimina ay wax ilaalin jirtay sidaa darteed marka gaalada way fahmeen waxay sameeyeen marka caadaadkii bay baabi'iyeen اعلامكم ماشي اود بدن او waxa كليه keenaya dabcan inay ayaga marka ay sameeyaan dadka ay qiyamka diiniga ay ka fogeeyaan ama qiyamka caadaadka iyo carafta ku dhisnaa ay ka fogeeyaan maxaa u sahlay meesha kaliya ama ugu muhiimsan ee masdarka ama wadada ay ku fuliyaan ama ay ku hawsheeda ay ku hirgeliyaan waa iclaamka waay waxay macnaha masakada dawladda waxaa weeye waxa loo yaqaan cawlamatul iclaam iclaamkan hadda adduunka ka dhigay hal qaryo waaxid hal tuulo ka dhigay marka waxaa weeye kaasaa marka wuxuu u sahlay inay halkaas ay ka fidiyaan dhaqamadoodii iyo thaqaafaadkooda qofkan marka wuxuu arkayaa dhaqamada kale adduunka kale ka jira marka tii adduunka ka jirta iyo midaan inta ka jirto waxay noqonayaan hal xabo waxa hal xabo ka dhigayana waxaa weeye waa iclaamkaas oo wax walba sahlay marka daahirada ayadana daahirad anaga bas aan haysta maahan ama Soomaaliya bas haysato waa daahir ijtimaaciya adduunka oo dhan haysato culamaa ijtimaac oo dhan ay ka hadlayaan arkaysid weeye